بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو عشر maanta waxaan ku baran doonaa insha Allah qaabka loo sameeyo business card kaas ah business standard ah ama cabirkiisana u qaadan doonaa cabir standard ah inagoo isticmaali doona inch business sida marka la sameynayo ugu horreyn marka soo timaado waxaa misan new document marka timaadid kadibna waxaad dooranaysaa custom waa in custom ku joogo customer ku joogo cabirka waa inaad ka dhigato 3.5 cabirka standardka ah 3.5 waa xagga width ah xagga height kana waa in ku noqoto 2 resolution waa in ku joogo 2 ilaa 300 inta u dhaxaysa kadibna waxaan oranayaa create amaba okay intaas marka uu ku soo baxo cabirkan baa ku soo baxay cabirkan waxa weyn cabirkii maxaa la yiraahdaa standardka ahaa uu qaadanayay business card marka ugu horreyn markaad sidan aad u soo qaadatid business cardkaagu sidan uu kugu diyaarsan yahay waxaad soo qaadanaysaa ugu horreyn haddii aad background ku soo horeysin kartid background baad ku soo horeysinaysaa laakiin anigu background kuma soo horeysiinayo waxaan isticmaalayaa ugu horreyn dhisaanadeeda ayaan doonaya in isticmaalo ugu horreyn waxaan soo qaadanayaa toolskiga waxaan kasoo dooranaya halka ay ku qoran tahay pen tool marka soo qaadatid dabeetna halkaas oo kale ayaan kasoo bilaabaya pen toolka ilaa iyo halkaas ayaa dabeetna u isticmaalaya pen tool inaan u isticmaalo intaas ayaan ku samaysanaya shapeka intaan markaan shapeka ku sameeyo dan shapekaasi waxaan ka dhigayaa colorka waan ka bedelayaa colorkaasi ayaan sameynaya okay shapeka markaan colorkaasi u sameeyey waxaan soo qaadanaya xaggan waxaan imanaya shapeskan kadib waxaan soo qaadanaya toolskan ay ku qoran tahay rounded rectangle tool waxa weeye waa rounded yacni wax laga wadaa hareeraha ayuu kasoo laabsan yahay ama uu kasoo duuban yahay maaha nimankaad kanadan rectangle markuu sidan yahay waa fikis caadi ah kan kale laakiin waxa sameynaysa waa rectangle dhinacyada laga soo ururiyay markaasi insha Allah kaas ayaan isticmaali doonaa markaan kan soo doorto intaanan dooranin saan doorto intaanan isticmaalin meesha ku isticmaalin halkan radiuska waxa weeye haddaan radiuskiisa 0 ka dhigo waxaad arki doontaa inuu fikis caadi yahay soo ma aragtid haddii aan radiuska xagga loo kordhiyo inta pixel radiuska la duubayo waxaad arki kartaa in la laabay oo yacni sidaa loo soo laabo dhinacyada kasoo urursan yahay markaasi sidaas awgeed xaggan waan duubi doonaa ilaa iyo waxaan gaarsiinayaa inuu gaadho 400 oo radius baan xaggan sidaa u duubayaa ilaa 350 waa caadi ilaa 400 baan adigu geysanayaa 400 markaan geeyo markaasi waa inuu shape saa isu soo duuba ama afar gees yacni inaanu noqonin inuu dhinacyada kasoo duuba ayaan rabaa okay intaa markaan saa isticmaalo markaasi xaggaas ayaan u qaadi doonaa si aan u arko colorkan waan ka bedeli doonaa waxaan isticmaali doonaa colorka orange ka baan isticmaali doonaa colorkaas markaan isticmaalana kadib waxaan sameynayaa control T baan taabanaya control T ama shape intaan doortay aan usan u imaado layerkiisa ayaan imanaya edit deedna waxaan imanaya free transform ama control T oo isla mid okay dabeetna waxaan sameynayaa rotation ma ku sameyn xaggaas ayaan u jeedinayaa intaas oo kale ayaan sidaa u jeedinaya intaas oo kale ayaan sidaa u jeedinaya hadduu yaro weyn yahay waan soo yarayn intaas deedna sidaas u jeediyey okay intaas saa markaan u jeediyey markaasi aan xagga u jeediyey waxaan isticmaalayaa isla kan isagoo rectangle kan rounded kan isticmaalayaa laakiin lead yar baan ka samaysanay marka ma dheereynayo leadad yar ayaan ka dhigayaa gaaban okay intaas markaan sameeyo markaasi colorkiisa ayaan doonaya inaan bedelo color noocaas oo kale ayaan u sameynayaa colorkaasi markaan u sameeyo kadib halkan ayaan keeni doonaa kadibna control T ayaan taaban doonaa transformka deedna rotation baan xagga ugu jeedinayaa rotationkan xagga ugu jeedinayo wuxuu noqonaya markaa rotationkii maxaa la yidhaha qaadanayay cabirkan inta leg isku dhinac waan u jeediyaa waa yahay markaasi kor ayaan yar qaadayaa waayahay madaxa ayuun baan u saaraya waayahay intaas markaan dabeetna soo saaro aan yar hore yar jeedin yar waayahay haddana waan ku simay si fiican ayaan ugu simay kanna waxaan sameynayaa xaggaasaan yar jeedinayaa
okay intaas markaan sameeyay kan ayaan haddana ka koobiyeysanaya mid kale alt intan taabto anu layerkan sare jooga ama layerkan yar bluega intan imaado ayaan control iyo G taabanaya oo markuu copy iga sameysmo kadib markaas ayaan qaadaya markaas ayaan xagga geynaya xagga markay control iyo T dabeetana dhinacan baan yar jeedinaya yar waaya kan baan hoos imanaya markaasi colorkayga waan ka bedelaya yellow baan ka dhigaya kaas sare ayaa colorkaas qaadanaya kadib kan ayaan ka koobiyeysanaya intaan control G taabto ayaan koobiyinaya mar kale waxaan geynaya halkaas ayaan geynaya markaa halkaas ayaan geynaya kan ayaan imanaya markaasi colorkan leh waan kasoo koobiyeysanaya mid kale halkan ayaan keenaya markaasi halkaasi ayaan markaasi keenaya colorka labaad waayahay intaas markay iisoo diyaarsan tahay sana ay ugu samaysan tahay waxaan imanaya kan ayaan imanaya kagan bluega ah kadib waxaan sameynaya afgaskiisaan imanaya dabeedna stroke ayaan u samaysanaya stroke blue ayaan u samaystay exactly saasuu dabeetna ii noqonaya stroke waan bedeli doonaa hadhow imika waxaan soo gelinayaa kan aan dul jooga layerkan sare jooga ayaa waxaan imanaya file dabeedna waxaan imanaya maxaa la yidhahdaa place si aan ugu soo furo aan sawir soo geliyo kadibna kan ayaan soo qaadanaya sawirkaasi isku soo furaya dabeetna halkaas ayaan geynaya halkaasi markaan geeyo dabeetna submit baan odhanaya waayo layerkan imika markuu kan yahay waxaan dul joogaa layerkan waan dul jooga aan ku dul dhuftaa sawirkan waa inuu layerka ka sarreeya markaas kadib right click baan siinayaa dadna waxaan leeyahay create clipping mask dadna clipping mask baa laigu sameeyey saas ayaan halkaa laigu soo dhigay waayahay stroke baan marka ku noqonaya strokean sameeyey strokean bluega baan ka bedelaya waxaan sameynaya stroke yani colorkaas le waan sameynaya exactly dabeetna saas ayaan ku saxay way marka design rabtaa lama doonayo inaad kalaraan badan isticmaashid kalaraan kala duwan isticmaashid kalaraanta waa inay ahaadaan kalaraan yani dhinac badan yani markaasi way si u badnaadaan mid ha ku jira laakiin haddaad kalaraantaada kala garan waayo keebaa badan keebaa yar iminka kalarkayga oo aragtaas kalarka yellowga ayaa u badan yahay ama kalarka liimiga ah ayaa u badan marka shirkadda kalarkeeda waa la garanaya in shirkadda huruud u badanta ama labada kalar ee isku jira kalarka orange iyo kalarka bluega white-ka hal blue waayahay intaas markaan aan u sameynay waxaan naga dhiban inaan backgroundkii sameyno intaynaan backgroundka sameyno horta backgroundkaan soo sameyno waxaan soo furaya dadna place baan kasoo furaya oo backgroundkii markaan kasoo qadanaya way backgroundkii dabeetana backgroundka meeshaan leekeysiinaya inahaasaan soo qaaday oo leekeysiinaya intaasi markaan leekeysiiyo backgroundkan waa inuu backgroundka kale un ku xigayo oo waxaan oo dhan uu ka wada hooseeya waxaan oo dhan waa inuu ka wada hooseeya saas markay noqoto dabeetna halkan normalsha ah waan bedelayaa kuwan kale midkii kugu soo baxay ku bedelanaysa anigu waxaan ku bedelay inta badan aan jeclahay inuu noqdo multiply meelaha qaarna waxaan isticmaalaa allah mustacaan inuu noqdo soft light laakiin soft light heli kuma soo baxayo markaasi kalba qaar baa linear light inoo la isticmaalaa linear lightkaas laakiin inta badan waxaan ku fiican waxyaabaha color kasoo muuqanaya kan kuma soo baxayo multiply adoo kii kugu soo baxo kugu qurux badnaadaan multiply baan odhanayaa resolutionkana maxaa la opacitygiisana waa yara khafiifinaya in yar kadib backgroundkii meesha waa ii leekaaday si fiican buu usoo baxay kadib halkan waxaan soo dhigayaa loogadii shirkadda iyo website-kii loogada haddii marka looga haysatidna waa soo dhigaysa haddii kalena dee maba haysatid markaasi insha allah markaasi magac baan ku qori doonaa okay loogadii shirkadda aad u samaysay halkaas aad soo dhigaysa halkaan magaca ku qoray waad aragtaa baan filayaa halkaas shirkaddii aan ku qornay magaceeda ayaad markaasi cid kusoo qoraysaa ayaad loogadii soo dhigaysaa kadibna halkana waxaad soo dhigaysaa iminka loogada waxaan soo gaabsan karaa laba xaraf oo keliya Kabe College KC ayaan soo gaabsan karaa laakiin loogadii halkaas aad soo dhigaysaa loogada markaad halkaas soo dhigtid logooyinka waa sida loo sameeyo xurufta looga sameeyo waa inoo soo socota laakiin waxbaan yar sameynaya yar laba xaraf waayahay marka tusaale Kabe College baan soo gaabsan intaas
marka intaa soo qorto dabeetana waxaan isticmaalayaa inaan inta yaro kalena aan ku qoro xuruf ayadana aan ku qoro www dot waayahay dabeetana waan soo yareynaya intaasi waayahay website-kiina halkaas aad ku qoraysaa kadibna website-kaagana waa inuu noqdaa intaasi waa inuu noqdaa way ugu horeyn qaybtan waxa weeye waa front page-kii weeye page xagga hore page-ka marka saa loo arko waxaa la arkayaa shirkadda magaceeda okay shirkadda loogadeeda website-ka shirkadda iyo shirkadda magaceeda halkan ku qori doono way business card-ka marka la arko waxaa la arkayaa horta ugu horeyn loogada marka la arko kadib waa in la arko maxaa la magaca shirkadda waa in la arko dabeedna website-ka shirkaddaasi dabeetana waa in la arko inagu tusaale shirkaddan waxaan ku talaqaan shirkadda electronic bixisa sida leerarkii waxaa shirkadda electric bixisa sida leer iyo waxyaaba noocaas oo kale ayaan ugu talagalnay okay waxaan soo qaadanaya xarafkan siidan kalarka inaan ka bedelaan jeclaystay aan u bixiyo kalar noocan kalaraantan ma doonayo inaan kalaraan badan isticmaalo imika waxaad halkan waad hortaa inta waa page-kii hore ee front page-kii marka front page-ku wuxuu kugu soo baxay sidan oo kale labadaas isku mid bay noqdeen labadaasna isku mid bay noqdeen halkan KC baa ku qoran xaggana wax ku sawir ka mid ah sawiraanta ku jira markaasi waxaynu samaysanaa fayl labaad maadaama sabab marka qaybtan la daabaco qaybta kale lagu dhejinayo waxaan sameynayaa qaybka labaad baan sameynayaa isla cabirka kii baan qaadanaya kii hore front page buu ahaa kana waa back front page-kii kana waxa weeye front waa back page-kii xagga dambe kadibna size waa isku mid konton iyo konton xagga sunkun bay kala duwan yihiin xaggan markuu 50% halkan ay taagan sunku kana waa 50% is leeyihiin kadibna waxaan doonayaa inaan sameeyo qaybtan qaybta haddaba qaybtii frontiga markaan sameynay la arkay qaybta xagga dambe waa in qofku ka arki karaa informationka shirkadda iyo yani contactiska waa in ka arki karaa lagala xiriirayay qofkaasi ugu horreyn markaasi waxaan soo qaadanayaa shape-kan rounded-ka baan soo qaadanaya sidii oo kale intii leeg baan samaysanaya markaasi intii leeg markaan samaystana insha allah waxaan doonayaa aan kalarkaas oo kale tusaale bixiyo kalarkan maaha kalar aan u baahanahay maadaama sawir hiranayna laakiin si aynu aragno baan ku samaysanaynaa marka maanta qaybtan ayaan kasoo jeedinaya qaybtan markaan kasoo jeediyo waxaan u sameynayaa waxaan soo qaadanayaa pen tool baan soo qaadanayaa pen tool markaan soo qaato pen toolka layerka background-ka hoose intaan imaado ayaan dabeetana xaggan ka sameynayaa mid kale halkaasoo kale markaan marinayo ayaan dabeetana halkaa ku dhufanayaa kadibna dabeetana halkaasaan saa u sameynaya yani halkan background-ka hoose waxaan imi waa inuu kan iyo kan waa in kala sarreeyaan waa inuu kan dambe casi waa aad imika samaysay waa inuu hooseeyo si uu kan kale u dul maro kadibna inahaasoo kale markaad saa usoo samaysid yani aan u sameynaya wax ka dhigaya kalarkii aan isticmaalaynin waayo isaas iyo kale aan soo sameeyey kadib waxaan soo furay background-keeni aan haysanay baan soo qaadanayaa background-kii baan soo furayaa background-ki waa kan intana daatana soo leek kanaan kusoo sameynaya kanaan soo leekaysiisanaya kaasi markaan soo leekaysiiyo imika background-kii waxaan ku qariyay kii hoose aan ku qariyay yani kan ayaan dhakada ka saaray aniga saa ku sameeyey kadibna right click baad siinaysaa dadna waxaad leedahay creating clean mask yani waad ku furaysaa kadibna waxaad oranaysaa halkan multiply baad kasoo samee markaadaan la yidhaahdo linear light waad aragtaan kusoo baxaya laakiin multiply ayaanan kas jeclay inuu noqdo multiply dadna opacity-giisana yara khafiif si uga soo dhex muuqdo kalarkeenii aan haysanay oo quruxda badnaa kan laftigiisa opacity-giisa waan yara khafiifin karaa way intaas markaan saa usoo sameynay waxaynu u baahanahay haddaba inaynu dhisaynkii inaynu haddaba sii wadano designing maadaama background-kii aynu sameynay qaybtan hore qaybtan yare intaan xaggana soo dhigayo kadib waxaan sameynayaa line-kii yara dhubnaa ee aan sameynayay intaan kan sare imaado
ayaan line-kii halkan kasoo dooranaya. Line-kii ayaan sameynaya inaan leeka xariiqaha ayaan u sameynaya saddex xariiq baan u sameynaya. Saddexdaas xariiqood mid waxaan dhigayaa Allahu musta'aan halkan hoose ayaan dhigayaa dadna counter routine yiraahdo ayaan xaggan u jeedinaya. Xaggaasi ayaan isagoo gaaban kasoo jeedinaya. waayahay waxa kale oo u baahanahay inaan sameeyo markaan halkaa ka sameeyay waxaan u baahanahay mid colorkaas oo kala oo xaggaasi sare isaguna meelahaasi isaguna kasoo jeedsida halkaas ku dhawaado weliba halkaasi kasoo jeedsida. waayahay kaasoo kale markaan sameeyay haddana waxaan u baahanahay mid bartan oo kale isaguna yacni intaasi kala soo jeedsida laakiin colorkan aan yeelanin wuxuu yeelanaya isagu color ka duwan waa colorka blue rasiinka color blue rasiin kadibna waa kaas halkaa markaan joogo markaasi qaybtan hoosteeda halkan hoose kan waxaan u samaysanayaa markaa intan line-kan cad waxaan u samaynayaa mid kale ayaan u samaynayaa paint tool baan imanaya kadib paint toolkan halkaa u sameeyo ilaa halkaasi ilaa halkaas ayaa waxaan u samaynayaa Allahu musta'aan ayaa waxaan u samaynayaa sorry kan aan halkaa imaado halkaas ayaan u samaynayaa paint tool baan ku samaynayaa ilaa halkaa marka colorkan waa colorkii saxda ah waxa kan lahayd marka hoos baan u qaadayaa kuwan baan hoos marinaya kan markaan hoos mariyo markaasi kan sare aan markii hore sameeyay colorkiisa waan ka bedelayaa maadaama marka hore uu qaadanayo sawirkan soo gelinayo markaasi sawirkan soo gelin waan doonanaya sawirkan soo gelin lahaa ayaan dooranaya marka sawirkan baan soo gelinaya kaas sawirkaas ayaan doonaya soo geliyo halkaas kadib waxaan sameeyaa right click baan siinaya waxaan leeyahay create clipping mask kadib haddana waxaad aragtaa inuu halkani sawir soo galay halkan inuu background soo galay halkana inay san soo gashay kadib waxaan u baahanahay inaan ku qoro informationkii kale aan ku qori lahaa ugu horreyn waxaan soo dooranayaa waxaan soo qorayaa farta typography ama aan isticmaalay Typicon aan isticmaali jirnay call-kii ugu horreyn waxa ugu horreynaya waa call waxa ku xigaya email waxa ku xigaya tusaale inta telefoonkii baan saa u qortay kadib telefoonka waxaan ka dhigayaa fartiisa waxaan ka dhigayaa inaan ka dhigo Allahu musta'aan black waaya imika halkaas telefoonkii baa yaala xaggana waxa yaala mid baan kasoo koobiyey xaggana mid baan kasoo koobiyey xaggana labaan kasoo koobinaya yaryar markaasi labada waxaan ka dhigaya small baan ka dhigaya iyagoo aan yaryaraynaya hadda waxaad aragtaa inay telefoonno badan yihiin laakiin waan bedelaya kan u horeysa marka imaado laba jeer baan kan click siinaya waa telefoon isagu ma bedelayo kan labaad laba jeer click siinaya halkan waxaan bedelayaa email uma taaban xarafka maadaama tab kan joogo kan baan imanaya isagana kadib isagana waxaan bedelayaa Allahu musta'aan waxaan bedelayaa WhatsApp WhatsApp ma isticmaalayo waxaan isticmaalayaa location m baan taabanaya kadibna location baa iimahay marka haddii aan doonayo inaan ka bedelo colorkan madowga si fiican ma soo baxayo colorkaas ayaa qurux badan inaan colorkaasi oo weliba kasii weydisan inaan u isticmaalo dhammaantoodna saas ma ka wada dhigaya inay colorkan ka wada qaataan emailkina waa ka
kana tusaale sidan oo kale mar beddelay kaas laba jeer click siinaya kadibna table-kan saas beddelay fartoodii waayahay inta markaan marka isticmaalay kan waxaan doonayaa inaan ka dhigo Allah musta'aan kan waxaan ka doonayaa inaan ka dhigo Facebook kan waxaan doonayaa inaan ka dhigo Instagram baan ka dhigaya in yar baan yar weynaynaya waayo kalarka ina waan ka beddelaya kana waan ka bedelaya okay Facebookna waa kan poolka waan ka bedelaya kalarkana waan ka beddelaya okay صح هذا si fiican bay isku leeyihiin marka waxaan ku qorayaa halkan waxaan ka soo bilaabayaa waxaan ku qorayaa telefoonkii shirkadda table-ka marka soo joogto marka number store uu ka baayo automatic waayo telefoonka marka samka table-kan joogtay sare fatada table-kan tahay automatic bisu beddelaysa marka number la taabto inaad aragtiin kale mooyi markaasi telefoonkii baan qorayaa markaasi tusaale free aan qoro 252 63 3979 351 numberkaaga markaas saas si aad u qortid tusaalada numberkeeda saa u qortid waxaad sameynaysaa inaad yar waaweynaysid in yar si farsamaysan halka yar markaan gaarsiiyo markaasi waxaan qorayaa halkan email baan ku qorayaa emailkiina waxaan ku qorayaa Allah musta'aan emailka markaasi marka shirkadda yani tusaale shirkad unbaad qoraysaa ahaan emailkeedii markaan xaggan aan soo yareynaya yar inaan isku soo dhawato xaggan aan soo durkinayaa in xaggan soo dhawatina waan rajeynaya waayahay intaa markaan ku qoro halkaasna waxaan ku qorayaa locationka okay intaa markaan deedna tusaale qoro halkaasi dabeetna waxaan ku qori doonaa waxaan ku qori doonaa Facebooka kaabe sidoo kale halkan waxaad ku qori doontaa Instagram-ka ciwaanka kugu qoran wax doona ma noqdo tan imika waxaad u aragtaas inuu xaggaasi inuu dhammaaday haddaan dhinacan aragtin ka soo durkay caddaan ka yar kor buuxiyo caddaan ka yar kan doonaya buuxiyo waay sano caddaan hore haddaba waxaan dhamaynay imika front page waxaan dhamaynay back page-kii baan dhamaynay waa back waa kan front-na waa kan xaggan waxaan aragnaa shirkadda qaybteedii hore tahay xaggan waxaan aragnaa shirkadda qaybteedii dambe tahay haddaan xagga nimaadno imika window-ga inaan arrange nimaadno dabeetna aan idhaahno maxaa la idhaahdaa Allah musta'aan tube horizontal haddaan sameyno xaggan waxay noogu dhan qaybtii informationka xaggan waxaa ku dhan xaggii shirkadda magaceedii website-keeda laga soo xiriiriyay imika labadii qaybood saas isu garab yaalaan kadibna labada qaybood baad daabacaysaa waad iska soo horkeynaysaa saas ayay noqonaysaa insha Allah casharkan casharkeena wuxuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu